سعيد عبد الله الدني oo qaabilay gaas faroole iyo Umar Cabdirashiid si loo xaliyo xiisada ka taagan magaalada Boosaaso gudoomiye Cirro oo xilkii laga qaaday farmaajo oo ku baaqi in aan waxba laga bedelay heshiiskii 17 Sebtembar shakhsiyaad uu wata Madoobe oo la doonay in ay soo baxaan kuraasta oo la shaaciyay wararkii ugu dambeeyay wada hadallo u socdo midowga musharaxiintii Ra'iisul Wasaare Roble warkaasi oo faahfaahsan ku soo dhawaada سعيد عبد الله الدني مدحوينها دولة جوالاتك بوتلاند أيام مدحتوية جرو كقابل مدحوينياشي وكهر رئيسي كلا عبد الرحمن محمود فرولي عبد الولي محمد علي قاس رئيس وزاري هوري عمر عبد الرشيد سياسيين كصوص سفر مقالة نيروبي دالك كينيا كلن كو حاج جوبجو كاها مدحوين كحيجين كبوتلاند أحمد علمي عثمان أحمد كراش وجيتك كلن كان أياه إن حل loo raadiyo xiisada ka taagan magaalada Boosaaso ee ka dhalatay halka qaadista agaasimaha BSF diidmada uu go'aankaas ku sameeyay Maxamuud Ismaan Diyaano Faroole Gaasi Umar Cabdirashiid ayaa sheegay in ay u istaageen xal u helista dagaalka saddexda cisho ka socday magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari oo sababay dhimasho dhaawac barakac burbur oo soo gaaray goobo kala duwan wafdiga ka soo gaaray magaalada Garowe ayaa la filayaa in ay tagaan magaalada Boosaaso si ay ula kulmaan dhinaca ciidanka BSF waxaana la filayaa in maalmaha soo socda xal waara loo gaaro xiisada ka taagan magaalada Boosaaso guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa ku dhawaaqay in ay xilkii ka qaadeen gudoomiye Maxamed Xasan Cirro oo ahaa gudoomiyihii guddiga tan iyo markii la aasaasay kulanka ay isugu yimaadeen dhammaan xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa looga dhawaaqay in xilkii laga qaaday kadib markii laga soo gudbiyay mooshin iyo eedayn guddiga ayaa gudoomiyihii hore ku eedeeyay shaqo gudasho la'aan iyo in uu ku milmay siyaasadda qodobada ay soo saareen guddiga ee lagu eedeeyay gudoomiye Cirro ayaa kala ah kow in gudoomiye Maxamed Xasan uu xadgudub joogto ah ku hayo guddiyada doorashada labo in uusan wada tashi la sameyn guddoonka iyo guddiyaasha intiisa kale saddex in uu lumiyay madax bannaanidii guddiga doorashooyinka isla markaasna uu baalmaray xeerarkii guddiga hoosaadka u yaallay iyo habraacii guud ee doorashada dalka afar inuu iska qaatay go'aanno khatar u keeni kara doorashada uusan guddiga waxba ka ogeyn kuna matelin shan in uu sabab u noqday guddoomiyaha in uu xumaado xiriirkii ka dhexeeyay guddiyada dhexdooda iyo golaha wada tashiga qaranka lix wada shaqayn xumo u dhaxaysa guddoomiyaha guddiyada heer maamul goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo maanta ka qayb galay munaasabadda xuska 87 sano guuridii ka soo wareegtay markii dhidibada loo aasay ciidanka booliiska Soomaaliya madaxweynaha oo jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanayso ayaa ka hadlay doorashada ka socota dalka madaxweyne farmaajo ayaa ku baaqay in aan lagu degdegin isbedel lagu sameeyo heshiiska 17 Sebtembar oo ay wada saxiixeen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada waxaan aaminsanahay in ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyadu wax badan qabteen doorashada dadban ay iyadeedaba muran ku dhisan heshiis 17 Sebtembar aan saxiixay uu meel uuna yaala wuxuu ahaa mid laga fakaray waa in la iska ilaaliyaa in wax laga bedelo ayuu yiri madaxweyne farmaajo dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shaaciyay liiska xubnaha guddiga ee soo xuliya ergada dooranaysa 6 kursi ee ugu horeysa xubnaha golaha shacabka ee ka imaanaya deegaanada maamulkaas gaar ahaan degmada Kismaayo waxaa soo baxaya cabasho laga muujinayo sida uu Axmed Madoobe u wajahayo doorashada golaha shacabka waxaana lagu eedeeyay inuu kuraasta dhan u diyaarsaday shakhsiyaad uu isaga aaminsan yahay sidoo kale waxaa lagu eedeeyay inuusan wax talo ah ka siin salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka rasmiga ah ee loogu talagalay in ay soo xulaan ergada dooranaysa kuraasta wadaqameedyadii rasmiga ahaa ayaa haatan qaarkood si cad uga horyimid inuu Axmed Madoobe doorashadaasi sida uu isaga rabo u sameeyo waxaa fashilmay qorshe uu Axmed Madoobe ku doonay in ergada soo dooranayso dhammaantood laga dhigo askar isaga oo ka amar qaata waxaana qorshahan Axmed Madoobe la waday gudoomiyaha guddiga